Okay, asxaabta sida arkaysanba trailer waa soo qaatay oo waa ku xariirsaday. Waa trailer cusub oo 2022 oo brand new rarka ugu horeeyay aniga ayaa ku qaadi doona insha Allah. weli rar laguma qaadin marka la rarka iyo trailer hoosta aragtaan waa cusub yahay cross memberada weli wadada lama saarin oo laguma shaqeynin. marka sidii warshadii u soo saartay waaye halkaana la soo dhigay aniga unba isugayay. waa Hyundai trailer oo 2022 kuwaan ayaa ka renti gareystay oo la dhaho Metro Trailer Leasing. marka trailer masha Allah adii inspection-ka ii socdo. inspection fiican waa ku soo sameeyay laakiin idinka ayaa idin tusinaya leerarka dhan waxa dhan way shaqeynayaan gudaha daafuro clean waaye oo alwaaxa dhulka wili waa sidii oo birbirqa oo waa nadiif. trailer wili lama isticmaalin oo hataa cusubka wax markay cusub yihiin sida gaariga kale markay cusub yahay wax cusubka waa ka carfinay rinjiga iyo wixii adii cusub inuu yahay waa laga dareemaa yani inuu wili still new yahay. marka trailer kii ka horeeyay waa xoogaa old iyo 2014 marka iska bedelay. waa ujeedaan baad aad iyo aad brand new yahay. marka insha Allah adiga trailer ana wada doona intii aan wada karo marka arkayna insha Allah dartaan wixii ka dambeeyo rarkayga ayaa soo qaadanaya ka sidaas ila socda. السلام عليكم داوديال كسو دواده meel walba adduunka ka joogtaan Somali Truck Show kusoo dhawaada. waa jimco wanaagsan jimcaha maanta ii tahay ma ogi waqtiga aad daawo doontid videogan. marka maanta jimco waaye isniinta ayaa rabay in aan video soo geliyo oo sida arkaysan community-ga ayaa sawir soo dhigay markii aan soo qaadanay trailer waa soo qaatay rarka waa ka soo qaaday Georgia Atlanta Georgia ayaa rarkaas ka qaaday wuxuuna u socday Indianapolis. marka ma ii suurta galin in aan videogaas soo geliyo sababtoo yani videoga markii aad duuba dhameystiray edit garay isdhahay wuxuu ku soo baxay iftiinkiisa ayaa zaid noqday oo ND filterka ayaa illow in isticmaal hadeertaan ND filter ayaa isticmaalayo qorax zaid jirto haddii ND filterka ka fujiyo kale videoga saan oo naqanaya sida hadda u jeedaan. marka ND filterkaas ayaan illow in isticmaalo oo iftiinka videoga iftiinkiisa balance ka dhigo si oosan mugdigana ugu badan qoraxdana aysan ugu badan. marka waa ii suurta gali waysa videogaas in aan soo geliyo sababtoo videoga markii edit garay isdhaay wuxuu ku soo baxay video aad iyo aad iftiinka ugu badan yahay qoraxda ay ugu badan tahay. marka videoga dhan iftiin zaid ayuu noqday. marka waa ka soo gudbay maanta oo jimcaha sida arkaysan taraagay gadaashida ayuu yaalaa oo halkan ayaa jooga Wisconsin ayaa rarka qaadaya. waxaan u socdaa Fort Worth ama Dallas areadaas Texas meeshaas ayaa isniinta ku daji doona insha Allah dartaan taraagay waa la rarooyaa. marka wax yar kadib meeshan ayaa ka bixi doona insha Allah halkaas iyo Texas ayaa aadi doona. marka trailer waa soo qaatay oo wiiga hadda ku shaqeynaya. trailer-han ani iska malihi waa trailer oo rent oo 2022 oo Hyundai. marka sidaas ila socda waa ku mahadsantiin daawashadiina. marka videogeenan hadda ayuu noo bilaabanaya hadda wax yar kadib markii rarka la dhameeyo
wadada ayaa fuulaya insha Allah meesha cawada seexdo meesha bareega daaqad ku qaato Beritoole ilaa Dallas ka tagayo marka waa ila socod doontaan insha Allah marka asxaabta haddii aad channelka ku cusub tahay oo maanta ay kuugu horeyso please subscribe saar like saar comment ka bixi marka waxaan rajeynayaa videogan inaad ka heshid insha Allah marka jimco wanaagsan mar kale tood haddii aysan jimco ahayn maalinta aad daawanaysid videogan kulli jimco ma naqanayso sababtoo ah waxaa laga isniinta hadda inaan soo geliyaa laga yaabaa isniinta marka maalin wanaagsan ayaa ku leeyahay ama habeen wanaagsan marka ku soo dhawaad Somali Truck Show waa kaasa videoga la soco khayr ayaa idin rajeynayaa videogan hadda ayaan bilaabanayaa wadada ila ark from Wisconsin all the way to Dallas Texas hadartan I-94 ka ayaa 1 mile ii jiro oo saaranahay agtiisa ayaa ka qaadaya oo 94 kana ku laabanaya westiga ku laabanaya I think Minneapolis ayaa dhaxmari doona oo dhankaasi Iowa I-35 ka qaadana Minneapolis Iowa ka galaya ilaa iyo straight I-35 ilaa Dallas marka insha Allah waa kaasa ila socda asxaabta kusoo dhawaada Somali Truck Show videogan wadadana ila ark Okay asxaabta sida arkayseen markay waa soo qaatay adeertan ayaa wadada galowya sida u jeedaan marka kusoo dhawaada Somali Truck Show meel walba adduunka ka joogtaan wax yar kadib waxaa qabsanaya I-94 ka marka kambaniga rarka soo qaaday waa kaasa hadda waxa saacada waxa waaye 2 waxa imaada 10 subaxnimo adiga xoogaa way haysteen marka hadda dhow ayaa ka soo baxay 2 o'clock waaye Friday marka sida hore idinku sheegayba last week hore weekgan waaye week hore maanta Friday waa okay yeah isniintii I hope you're not feeling maqlaysaan because turn left onto County Road B. Marka isniinta hore ayaa video diyaariyay oo duubay marka trailer soo qaadanay sida idin sheegaybo marka videogaas iftiinka ayaa aad ugu batay I hope waxaan rajeynayaa kan adiga waa dadaalooya yani in oosan sida videogii hore oosan naqanin Turn left. marka videogaas iftiinkiisa ayaa zaid sida hadartan ayaa tusasaan oo ku soo baxay videogaas iftiinkiisa too much waaye marka kan waxaan rajeynayaa in oo nadiif yahay oo keeshin dartan waxaa ka baxaya Wisconsin adiga 75 mayl camal Minneapolis waa dhaxmaraya ma istaagay waqti ma hay from there I-35 ka Iowa ilaa iyo Dallas saasa ku tagaya insha Allah dadka Ilaahay karaal noqdo marka so far so good trailahan cusub waa ku heystaa yani wax walba way ka cusub yihiin 2022 waa nadiif saa'id marka trailihii hore adiga duqo ahay oo 2014 ahay
nafto ii keenay yani mar walba taayirka bedel kanka bedel aniga tareelihiina adim iska liid marka it doesn't make sense in aad tareela adiga aadan lahayn mar walba wax ka bedeshid oo aad kharash gelisid marka waxaa go'aansaday inaad tareelahaas iska bedelo oo tareelahan cusub asaas uu bedelay marka dartaan wiig ayaa isticmaalayaa tareelahan cusub waxaan rabiyaa marka isniintii ayaa tareelahan soo qaatay Georgia aaday video waa caadi ahna idin duubay ii suurtagal weyse videogii tinkiisa tomay okay marka hadartaan marka u gadgalna rarka maanta soo qaaday waxaa ka soo qaaday sida arkaysa Wisconsin halkan hadda waxaa qabsanaa I-94 Westiga Minneapolis Minnesota dhaxmaraya Iowa Kansas Missouri dhulkaas dhan Oklahoma halkaas Dallas ka galaya marka rarkan culeyskiisa waa 24,000 oo pound oo rasaas oo culus ma ahan يا جير ملالا قفا ما في عنو اوكي كوعلي ياسين اوكي ركع عليس كيس 24 باون واي هرتل مرودة اسفي عمسة 24 باون واي from Wisconsin all the way to Fort Worth Texas Dallas area Fort Worth أيو الصعداء dartaana sida u jeedaan I-94 ayaa hadda qabsaday waa idin tusi doonaa insha Allah galabta meesha istaago subax meesha ka bilaabayo ilaa iyo Texas ka tagayno insha Allah marka jimco wanaagsan asxaabta waa kana videogii idinku tala galay سفيعاً إلى أركا ويجي هوري أذيقا خميستي أربعادي ثلاثة أذيقا ظهور دي ساعدان وكاليتود واحد عاي أذيقا إنديانابوليس مركا ركا ديك إنديانابوليس ركا لك سو قادي أو مسيسيب أسعودة marka adiga tripkayga marka oo dhax ii maray waxa istaagay pilot oo aan mas'uul iyo bareegi wax ka qaadanay shidaal uu soo rabay marka pilotka markii aan gali rabay gaari ayaa soo galay waa idin tusinayaa videoga horta videoga ila arka kadib waa ka hadlaa okay videogan aan tusinayo بايلوت كوا قل ربادي واسلو ترتيبه او سعودي غاري بيك اب تراغ ayaa xoog ku soo baxay hortay dalaq soo markii waxa soo qabatay dash cameradeedi oo videoga sidaas ku save gareysay marka lacalla mar walba horta waxa fiican attention kaaga inuu joogo oo wadada iska fiirisid hadii attention kay oo san joogi lahayn gaarigaas waxa waa ku dhici lahay ama speed hada ku socolaha ku dhici lahay marka gaarigana ana ka xaq lahay wadada istreeda uu socda asagana asoo iska fiirino dalaq iska soo dhahay mar walba marka gaariyaasha yar yar taraaga waa iska soo horgalaan bareegi ku qabanayaan marka waxa idin sheegaya waxa fiican oo muhiim ah in aad haysatid dashcam oo ay taraaga kugu xiran tahay kaamirad habeen iyo maalin 24 hours 7 days a week oo video ku duubeyso si hadhooti haddii kaamirada nooca isticmaal Garmin dashcam 66Y waxay ku fiican tahay locationka aad joogtid markaas saacadii iyo speedka ku socotay iyo waxay kale sheegay speedki saacadii iyo taariikhdii iyo locationku wax dhan ay sheegay
si hadhowtii haddii aadan been lagaaga sheegin oo askari xitaa oo ku dhihin isbiidaa ku socotay oo tigid beena ku siinin si haddii qof inta hortaada soo gala oo bareeg kuu qabto kaleeto ku dhacdid oosan been kaa sheegin ama qof hadduu kugu dhaco oosan ku dhihin adaa gardaran iyo jiijiid isjiijiidkaas dhan saada u gelin kaamiradaas iska soo gado noocay rabtaa aataba dashcam waa boqolkiiba boqol muhiim saa'ida in ay taraagga kuugu dhegan tahay marka waa aragteen baada videogan qofkan oo kale ninkan wadaaya bika taraagga waa iska soo gala meesha anaa bareeg ka qabta maan haddaa bareeg ka qaban lahayn waa ku dhici lahay marka yacni mar walba waa dhacdaa every day maalin walba waxyaabahan iyo waxyaaba ka daran hadda tan waxmaba aanba adoo 70 miles per hour ku socota 65 miles per hour ku socota hortaad dalaq intaa lasoo dhaho bareeg lagu duuga hadda ka hor Louisiana inay yada jeclahay Louisiana ay tanka ku socday exitka hadda exitkan oo kale agtiisa markaa halkan markaa maraayo kale tood exitkan dhinacaana gaari oo tanker ee booyad wada soo marayay gaari ayaa exitkiisa dhaafi rabay oo booyadii inta shoulderkaas ku soo cararay oo aniga hortayda soo galo bareeg ii qabtay oo shoulderkii kale ku cararay oo coos ka dardaray oo saas ku baxay bareeg aad iyo aad xoogaa ka qabtay haddii aad bareeg zaa'ida ka qaban lahayn oo kale waa ku dhici lahayd laakiin alxamdulillah camera watay yani videogaas hadda maahay laakiin haddii aadan camera wadan oo caddayn aadan haynin mar walba qaladka waxaa la saaraa taraagga qaldan badanaa la dhahaa adaa culayska lagu saaraa sababtoo adiga ayaa ka insurance fiican oo insurance fiican haysataa oo lacag fiican oo coverage-kaaga gaariga yar iyo kaaga weyn marka saas awgeed dadka qaar hunguri yani dhuun ahaan iimaan darro ayay hortaada usoo galayaan ma ka fikirayaan dhibaatada ka soo gaarayso naftooda inay halligooyaan gaarigan culayskiisa 80,000 pound wado kale yani hadda halkaada bareeg ka qabatid hore kama istaagayo waa waqtigii qaadanaya inuu istaago hortiisa iska soo galayaan asoo speed ku socda bareegay u qabanayaan halaas waxay rabaan inaad ku dhacdid oo ay insurance-gaaga lacag ka daadsadaan ama dhuun u raadiyaan laakiin xisaabta uguma jirto haddii gaarigan oo ku dhaco dhibka ka soo gaari karo inay ku cuuriyaami karaan inay ku dhimo karaan marka adiga dadka bilaadanka waa qofba si uu fikiraa marka adiga si mar walba aadan dood iyo buuq iyo rafaad u gelinba waxaa fiican camera inaad wadatid haddii aad qof ku dhacdid oo wax caddeyn aadahayn qofkaas dhib soo gaara ama dhinto xabsi daa'inata xabsi ayaa lagu taxaaba laakiin mar walba muhiim waaye adigana inaad wadatid camero dashcam oo caddaynayso yani qaabkay wax u dhaceen marka ilaahay wax dhibo mana tusiyo insha allah videoga waa aragteenba marka insha allah ilaahay anaga hayo waddadan habeen iyo maalin aan saarannahay waa riski waaye halis waaye maalin walba yani waa intaasoo halis ayaa galnaa marka adiga insha allah wixii taxadar oo adiga awooddaada ee waa samay kartid sameey oo aad publicana ku badbaadi kartid dadka waddada kula wadaagaya ku badbaadi kartid nafsadaadana ayaa ku badbaadi kartid marka insha allah taas ayaa meeshaas uga harayaa yani safety-ga marka haddii aad hadeertaan laysanka taraagga mar dhow soo qaadatay ama hadeertaan iskuulka aad dhiganaysid oo aad laysanka aad ku qaadan lahayd taraagga aad diyaarinaysid yani marka wax walba adduunka markay kugu cusub yihiin waa adag yihiin marka haddii imtixaanka oo kale hadda ku dhacday oo laysanka oo imtixaanka taraagga ku dhacdo kale waxba niyad jabin yani mar labaad haddana gal mar saddexaad gal mar shanaad gal never adiga haas dhiibin marnaba ha ku fikirin in aadan awoodin oo aadan samayn karin yani dadaal kuna naqo haddii aad ku haminaysid in aad ku soo biirtid oo aad naqatid taraagle oo aad heerka gaartid marka oo aad gool leedahay oo aad hadaf leedahay soo dhawaaw ilaahay ha kuu fududeeyo dadaal waxaa loo baahan yahay in aad kowdii waxaa ka soo bilaabaysaa dadaa usoo shaqaynaya company driver oo taraag
dad leeyihiina soo kaxaynay kambaniyada waaweyn ka soo bilaaway ama qof aad training ku siinaa taraagiisa waday kadib markii aad experience yeelatid oo kaligaa taraag lagu dhiibo taraagaas haddana xoogaa wadayay haddii aad awoodid ama aad xoogaa sanad 2 sano shaqaysan oo lacag aruursatid taraag aad leedahay soo iibsanaysaa haddii aad wadamacaas kugu jiro oo aad jeceshahay in aad owner operator noqotid oo adiga taraagaaga wadatid oo cidna aada u shaqaynin oo nafsadaada kaliya u shaqaysid iyadana waa gaare insha allahu marka ilaahay dadka horta ilaahay qof walba dadaalayo dadaalkiisa ha gaarsiiyo qofka iskuul ku jiro hadeertaan ama hadeertaan ka soo baxay shaqo fiican alla u sahlo xoogaa taxadarkaaga ha badnaado insha allahu dadaal heer waa ka gaaraysaa insha allah aslaanaas adiga oo aad gool leedahay oo maskaxdaada ay wax ku jiraan oo aas leedahay meel alleelay meeshaas gaar cid ka hor istaagi karta ma jirto waa gaaraysaa adiga oo kaliya ayay kugu xiran tahay marka asxaabta waa kaasa wadadan I-94 westiga hadda ku socdaa okay sidaas iyo la socda wadada wadana galabta meesha istaaga waa arki doonaa insha allah marka khayr ayaa idin rajaynaa videogeena weli ma dhowo maanta jimco waaye maanta rarka wuxuu ahay 1040 mayl marka maanta dhan waa maanta inta waxaa haystaa adiga 5 saacadood inta ay gaarsiiso waa arkaynaa biri intaa socon kara waa soconaa meesha taga waxaa rabaa inaa meesha tago 34 hour reset ku qaato isniinta haddana meeshaas kasii bilaabo insha allah haddii uu ilaahay ka raali noqdo marka asxaabta sidaas ila socda wadada ila arka waa inoo hadhowti markaa istaago insha allah okay asxaabta hadeertaana waxaa soo galay Minnesota kusoo dhawaada Minnesota markaasaan usoo gashay way stationka ugu horeeya oo I-94 ku yaalo waa kaasa maanta wuu xiran yahay badanaa weligeed iyo leed maalin door saacadahan oo kale adiga maalin baa hadee tahay asoo xiran ma arkin maanta Friday waxay u xireen ma ogi badanaa waa furnaa jir way stationkan marka maanta wuu xirnaan yahay hadeertaan way station closed ku qoran bypass marka Minnesota adiga I-94ka Minneapolis ma dhex marayo waxaa qaadanaa 464ka I think 464ka loopka kadib marka Minneapolis la dhaafo halkaas ayaa ka qaadanaa I-35ka oo Iowa ayaa sii maraya kadibna from Iowa to Missouri, Kansas, Oklahoma, kadib Texas saasaa ku galaya marka sidaas ay la socdaan okay asxaabta subax wanaagsan xaalay yani mugdi markaa imaanaya hadda waxaan joogaa Des Moines Iowa ayaa kasoo toosay pilotka ku yaalo I-80ga iyo I-35ka oo isla socda markash maqaayad Soomaaliya u dhow adiga xaalay waa aaday sambuus iyo chapati ka soo qaatay hadhowtii ayaa cuni doonaa insha allah marka 30 minutes break qaadanaya dartaan subaxdii markaa soo kaco ma jecel inaa wax cuno hal koob oo coffee igu filan marka maantay waa maalintii labaad maalin sabti
kusoo dhawaada mar labaad mar saddexaad Somali Truck Show ee pilotkan ka dhex baxaya freewaygaas ay dhigay 35 ka qabsanaa 35 ka all the way asaga ay geenayo Fort Worth Texas ama Dallas area adiga bay galabtay insha Allah marka هذه ما سنتين daawashada daawanaysa Somali Truck Show hadii videoga oo ka heshid like sar badiya si oo YouTube ka recommendation u sameeyo oo dad badan ay arkaan videoga sidaas ay socdo Okay, asxaabta hadda tan 30 minute break ayaa ku qaadanayaa Kansas magaalo kamid ah 430 mayl ii hartay insha Allah galabta waa tagi doonaa Fort Worth Dallas marka 30 minute break markoo ii dhamaado ayaa wadada soo galaya ila socda madartaana waxa ku baashaalooya oo cunooya sambuus oo aan soo gatay maqaayadii Demois Iowa shalay aan soo qaatay iyo Jibati marka breakgayga ku qaadanaa waan ku baashaala kadibna wadada ayaa ku soo laabanaa insha Allah marka ila socda Okay, asxaabta sida arkaysan calaamadaas waa welcome to Texas home sweet home Texas ayaa soo galay markay dartaan wax yar kadib Denton Texas ayaa istaagaya pilotka ku yaalo halkaas ayaa 24 hour reset ku qaada doona insha Allah oo isniinta ka sii bixi doona oo delivery-ga sii sameey doona halkaas ka sii wadi doona insha Allah marka khayr ayaa rajeynaa videogeena halkan ayuu ku egyahay waa ku maasantahay daawashada daawanaysa Somali Truck Show